fiir qofka diinta leh hadii uu gabadha jeclaado oo ay qanciso ay u wanaagsanaato wuu si wanaajinayaa sharafteeda sharaf buu ugu sii darayaa inteeda way ka sii saramaraysaa gabadhii haddii uu naco oo ay ku xumaato oo anfici weydana ma dulminayo stage-kii ay taagnayd iyo levelkeeda kama hoos marinayo ninka diinta leh waxaa jirta qiso سعيد بن مصيب تابعي قال به جري ومن علماء التابعين علماء التابعين تقوى وين أبو كمدي هاي وحوط عليه بقى اللي يرد قبر آد الدين بدن وآد أخلاق بدن ووحكست أو قروح بدن جمال حتى قروح لقو شاكيستان ذكر نمكو شاكيستان وحول با ضدك أقصر الرئيس عمل الله مالين تيدن بي شيخ أسوغو جوغا حلقة دي درسي وكو أخرين يي أيا نين أرددي سكمده وحوى عبد الله ابن وداع على الهجري أيوة أي ونين حاصل أرهير لويه أرددي سكمده دور بريبو مغرمان تدنبو يمد مركاسو وحو يري maxaa kugu dhacay bariyaha noomaada iimaanina markaasuu wuxuu xaaskii baa iga dhimatay markaasuu wuxuu maxaad u guursan weyday markaasuu wuxuu yiri oo yaa ii guurinaya ayadoo gurigaygaba aynan oolin 3 dirham xataa ma haysto waxay dhahan labo haystay ama 3 wax la mid ah baan haystaa buu yiri markaasuu wuxuu yiri yaa ii guurinaya anoo haysta labo ama 3 dirham baan haystaaba yaa ii guurinaya markaasuu wuxuu anaa ku guurinaya markaasuu maada ii guurinaya suuyaha gabadha la leeyahay ninkaas 2 dirham haysta oo xirowga oo miskiinka ah oo ardayga ah waan ku guurinaya ma taqaanaan waxa loo diiday Waliid ibn Abd Malik ibn Marwan wa khaliifkii muslimiinta umawiyiinta oo adduunka khilaafadii muslimiinta ugu awood bandeed ah wiilku dhalay baa loo diiday maal iyo sharaf iyo magac iyo madaxtinimo ayaa soo doonatay markaasuu abeed wuxuu mar rabay dhaaf kuma siinay gabadhayda wuu diiday sababta diin ma lahayn nin dawlad iyo siyaasad iyo maamul ku dhex jiro ahaayo aan diinta markaas culimanimo iyo diin aan lagu tuhmayn markaasuu wuxuu anaa ku guurinay ma gabadhii Waliid ibn Abd Malik loo diiday ii guurinaysa oo magaalada dhan laga yaqaano markaasuu wuxuu yiri waa yahay sheekhi wuxuu bilaabay ba إن الحمد لله نحمده مركو دمي افتتاحي أيوه وحيري قبل إذا وكو جوري مرخاتياله وسمي نمكي آد بو فرحي إن عنو نحسن هاي إن عنو فرح سن هاي إن عنو حو كان نحسن هاي قبل دي شيخ لو جوري شلنا ما هيست ماله جاي ما هيست إن عنو حو كفر حسن هاي قبل ونكسم بو هلا جوري جيبو تجي وصامنا أفركي بو جوري تجي مركزو حو ساقاتي روتي قلالان يسليد إنه اسكعنه asagoo rootiga iyo saliid isku dhuuqaya ayaa albaabka la soo gargaraacay waa waqti maghribka waa cashadii suuyiri waa kuma man yaa albaabka jooga suuyi Saciid waa Saciid wuxuu yiri waxa maskaxayda ku soo dhacday intii Saciid aan aqaanay magaalada yaa maskaxayda ku soo dhacday talo Saciid kan waa kee Saciid ibn Musayyib waligii maskaxayda kuma soo dhicinba sheekhiba gurigaaga imaanaya oo wuxuu waligii kuma arag gurigiisa iyo masaajidka meel ka baxsan markaas waxaan iribi Saciidka waa Saciid ibn Musayyib muxuu niyada isleeyahay wala gabadhi waa laga noqday nasiib in aan lahayn waan is ogaa albaabku ka furay markaas aan iribi maxaa sheekh saacadan isu soo lugaysay ana ku imaan lahaa markaas uu ma adaa mudan inaan ku nimaadno markaas wuxuu yiri markaas aan iribi maxaa danta saacadan leedahay ku gudaa sheekh dantan ku guda waa maxay dhinacna uu baqaya markaas uu yiri waxaan ogaa inaad doob tahay oo naagtii xaaskii ka dhimatayoo waxaan rabaa inaan gabadhan ku guuriyay caawa aan ku keeno waxaan ka baqay inaad xaslaan caawa seexatid oo doobnimada aad habeen ku sii waartid fiiri hal habeen inaad sii joogtay adoo dooban ka naxaya waa ninka doobka waa iska miskiin ah oo iska dhibaataysan markaasuu yiri waa tan gabadhaada qabso gacantu soo qabtuu yiri guriga ii soo galiyay waaba gabar Saciid ibn Musayyib ka dheer buu yiri odiyaabays markuu guriga soo galiyay ninkii wuxuu yiri khubuskii iyo saliidii ayaan wuxuu yiri faynuuska gadaashiisa ku xaseeyay say oo arag oo uga naxin way naxaysaa ilaa hadda arta ninka guriga waxa laga cunay markaan meeshii ku xaseeyay baan fariisiyay buu yiri kor buu aaday dariskiisu u koray dhagax buu ku tuuray dariska albaabkoodii markay soo koreen bay dhahay maxaa dhacay suu yiri Saciid ibn Musayyib si kadiisa gabadhiisa igu guuriyay kaaga darantan hadduu guriga ii soo dhex fariisiyay bal kaalaya Saciid ibn Musayyib gabadhiisa ku guuriyay ha فير ودين وحر هذا سعيد المصيب ودين
gabadha diin baa loo raadinayaa akhlaaq baa loo raadinayaa markaasuu wuxuu yiri hooyaday baa maqashay oo waxay tiri 3 bari ilaa aan soo hagaajiyo walla inaad gabadhan la aqal galayn